السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواad walaalahay qaaliga meel walba joogtaan channelka daga daawanaysan waa Faaduma Filsan qofka idin la hadlay waana Faaduma Filsana waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan meel kasta joogtaan alxamdulillah rabbil caalamiin anaga waa caafimaad qabnaa inta xanuunsan ilaahay inoo caafiyo qof kastana muraadkiisa aan macsilahayn midigta ilaahay ha ka siiyo mar kale aad iyo aad baan idin salaamayaa walaalahay qaaliga haday tahay markii koobaad aad soo booqato subscribe-ta noo saar si xishmad leh baan kaaga codsanaynaa like-ta dhac iskaga sii commentiga ra'yigaaga ku soo qor aan isla joognahay warkii hore war soo dhaaf labadan beri live baa la isku furay baa socod fanaan socdaal iyo gabadha goosaa live isku furay baa socod warka daran baa imaaday waxaa la yiri sheekadaasi wax jirta ma ahayna been ay ahayd lagulaha been bay ahayd baa la yiri gabadhii live-ka kula jirtay ee dadku haysteen ee lalaha iyadaa kala furtay yaa baa horta soo hadashay iyadaa tiktokeeda video soo gelisay anigu sidaan arkay markaasay waxay tiri waxba kama jirin guurkaasi waxba kama jirin bay iyadu taagan tahay bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani waligay allah waxaas kula sheegay xataa ma arkay bal videoga aan isla aragno horta waxayna war idinku daalinin wanaagsan dhageysta waxaan halkan ka sheegayaa oo in wallahi ugu billahi ugu tallahiya alfanaan socdaal inaagtiisa inaan xiraayo oo xabsi aan geenayo yaa maanta leefkooda ay qabsaday ayaga ay soo qabsadeen ayaga ii bilaabeen sheekada ii bilaabeen aniga waa iska kabtamay kabtankii waxa waaweynaa laga dhigay kadib waa la isku furay markii la isfuray kadib browgii waxa keentay la yiri qaali ka dambeysay aniga kama dambeyn leefkiisa intaasoo kun oo qof oo dad haysteen ma garatay dadkan hadda isfurayeen madaxooda iska fureen barangii ahayd weligoodna isma guursan hadda just now waxaa maqlaysin inaa socdaal soo xiro oo hadalka beenta uu sheegay aan u xiro ballan waa ii sheergareeya waani baryaa soomaali axmed ii sheergareeya بسم الله الرحمن الرحيم horta gabadhi bahal hanjabaad ah bay baalaha ka marisa waa u hanjabtay cagahay lagu ugu dhafato yaa waxay tiri beentu sheegay baan u soo xirayaa bay taaganta beentu sheegay baan u soo xirayaa sheekadan waxay tiri baraanki bay horta haday baraanki ahayd oy been ahayd yaa xalay hadal intuu uurkaaga ku jiro amaano leeyahay marba hadduu hadalku afka ka soo baxo meel kasta wuu gaari sheekada horta dad unbaa soo xaqiijin doona hadday run ahayd iyo hadday been ahayd ba kolley waa la soo xaqiijino iyadoo la wado oo xaqiiqa ah waa la arki waa la soo taaban Soomaaliyaban u nahay taas waa la soo sheegi dad badan baa soo sheegi dad garanayaaba joogo dad xaadir ahaaba joogo kuwii waxaan ku iri hawsha wax ka waday baaba dee nool taagtaagan iyagaaba soo sheegi soo ma aha hadday erayga iyadu ay dhahday aynu waxba ka jirno heerkaas isguursay guurkooda run ahaana dee iyada ka khaldan anagu waxaanu maqalay in baan wax ka sheegi karnaa iyada golle gabadha la eedaayay inay cidda isku dirtay yaa dhulka dhan waa la haystay saasay dadku ugu wada dheganaayeen soo ma aha heerkaasi hadday reer jiro ahaayeen oo dee gabadha warkay sheegtay yaa waraan jirin uu yahay dembiga ay ka gashay ilaahay ha ka dhaafo qof reer dumiyey dembigiisa ma yare haddii ayn iyagu ayna isba qabinna kay galeenay dadka geliyeen baaba ka sii weyn soo ma aha horta beryahan dambe dhibaatadu waa iska soo badbadanaysaa Soomaaliya waxayna horay u lahaan jirin ba aad u imaanaya waxbaa la maqlayaa maalinba waxbaa cusub war ilaahay khayrka ha ina waafajiyo bal wixii ra'yigiina ah commentiga ku soo qora asxaabe